waxaan nahay odayaasha gobolka ama degmada Gaalkacyo waxaan soo dhaweynaynaa waxqabadka halkaan ka socda meeshaani waa meeshii loo oran jiray kaambada oo ay dadku deganaan jireen waagi hore oo la dumiyey haddii la dumiyeyna waxay mar labaad noqotay meel hooy u ah in qamriga lagu dhuunto qoolada in lala galo in fisq lagu sameeyo waxayna u dhowdahay inuu xanuun ay ka dilaacaan waxa allaala waxa wasaqa oo eeriyada halkaas la keenaa sidaa daraadeed mar haddii dhismaha deer ka socda uusan jirin in horta waxa yaala laga qaado meesha oo la nadiifiyo oo dugsi aan lagu soo dhuumanaya oo keeni karta caafimaad darrada iyo amni darrada labadaba keeni karta in meesha laga qaado waxaan soo dhaweynaynaa aad soo dhaweynaynaa waan ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan sheegaan maamulka degmada oo arrintan iyo heer gobol arrintan wada aad baan ugu mahadnaqaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan saaka taaganahay halkan oo loo yaqaanay kaambada booliiska runtii waxay ahaayeen guryo markii hore ay galaan ama lala galo waxyaalaha anshaxa maaragtay aan ku soo banayn iyo waxyaalo badan oo maaragtay amni darrada xitaa ku leh waxaan runtii ka howlgalnay saakay in la burburiyo kadib markii arrintaasi ay ku qanceen fulinta degmadu waxyaalaha naga soo gaaray ama cabashooyinka ka yimid shacabka bayna ka mid ahayd iyo talooyinkooda annagoo mar kasta ku shaqaynayna talooyinka ay noo soo jeediyaan bulshada reer Gaalkacyo iyo waxyaalaha u baahan in degdeg looga howlgalo bay runtii ka mid tahay waa ilaa 30 qol oo waxa weeye saakay shaqadoodu bilaabatay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan ku soo gabagabowdo waana barnaamijkan uga mahad celinaynaa qaybo ka mid ah ganacsatada degmada oo runtii ka qayb qaatay in ay sidaan maaragtay hawshan u fusho waxaan samayn doonaa in markii meeshaas la dhameeyo lagu sameeyo carratuur si aysan meeshaas cid damba u gelin ama waxyaalaha laga burburiyey aysan u saamayn dhul kale insha Allah taala mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu ka codsanaynaa bulshada reer Gaalkacyo in ay mar walba talo iyo tabarba ay la garab istaagaan maamulkooda dawladda hoose iyo ciidamadooda u heelan in ay sugaan wax walba oo maaragtay ku saabsan shaqo socodsiinta bulshada. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi